السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا كيسونا كانوا دارسين وكاشو سبب كسر يوتيوب channel كنا دي كونسبت سبسكرايب لايك الشير مده وأصحاب تجارسي أديات ما سنتاي. على داني تيك توك سو تقنين بو عملنا أيامها قليل زايدة واستعماشا خاصة دمر زايدة واستعمالان سو تيم قارن حيو استعمالان سي أو هذا جري kusoo caanbax ama adi faa'iido ahaan qaarna waxay u isticmaalaan adiga si kala marka kuwa si fiican u isticmaalaya wax ma ka sheegi karna sababtoo ah danahooda ogin laakiin dadkan kale danahooda ma og waan loo faa'iideysanaa saas waxaan ka wadaa macnaheeda adigu ogtahay qof dumar waa cawro socod haddii ay meel yar iska fayda waxaan u malaynayaa cadow fara badan ka faa'iideysan kara ama wax yar ka halaabi kara intaas ay fursad u tahay dadka qaar saas ay tahay dhalinyarta inta caanka ah ama YouTube-ka ama meelaha qaar waxaa jiraan dad adiga baaq u soo diray ama waxaa jiraan dad oo kula talo wanaagsan si inkastoo waxa qaadanaya iskiyar tahay dadkaas ay tahay waxa kamid ah haddaanay maandhawed soo hadlay CK soo hadlay baaq u soo diray yani inay ku habooneen arrintan gabar walba oo Soomaaliyeed oo yani waxaasay ku dhaqantay inay ku habooneen ama ay ka wantowdo haddii ay iska dhaaftan inay faraj furi kara bal baaqasay wuxuu yahay ama CK hadallo sheegay ama wuxuu kula tali gabdhaha Soomaaliyeed bal aan isla dhageysan insha Allah. A few moments later. mid ayaan idin sheegayaa marka midaan idin sheegaya waxay tahay 2022 hooskaga aaminin cabna laba hadda asaga waa laga jabsaday laakiin aniga digni aan ugu sheegaa 2022 hooskaga aamin mid kale samee gabdhaha wiilasha hadda yani waxaan soo qabtay video soo dhaxda marahaya maxaan dhihi jiray video hore soo socday marka aniga hadda inta muhiimku ma soo qaadanaya kun u leeyta qof hoos tala siinaya jira oo arrin fara badan iska dhacman marka qaar qof wax laga jabsadaa qof lagu xadgudba markaas awgeed inta hore anaga ma una quseyn intaan damaan kala qabsanayna aan ku socono la dardaarka ku socdaa gabadhay haddii aad doonaysid in aad TikTok ka soo cabaxdo please and please yaa laga waalin assumaantaada ku soo cabaxay aysan ahayn soo maaha markii aad ku soo cabaxay sida hadda socoto hadda 99% TikTok gabdhaha u badan wax soo cabaxay 99% kaasna 90% ayaa waxay noqdaan kuwa ku soo cabaxay inay iskaawiyaan waxyaabaha shaxdara ay sameeyaan joog war سأكتب أسوي أكشن قنصينها مركو يعني واحد عدى وحي مش كده أنا هرتو في تيك توك ساسو ما زايد ما متعود أكونت وكل هاي لكني وما بدني ويكي هالمرة لو مرة ناسا وفير لقيها كل واحد عدد ومش كده عايزة واقع عمر كده استعملها يعني كان سيدو الشيء هنا بقول كذا سجاشن دمر سقل دنا يستعملها وده وكسح سنياي وكسح سن قبل دمر ما أنت دي أي كوسطاي استكدا فادية جواد حدي بقى عرفت إن معلدي فولوز كذا أسيري هاي سي فولوز يكون سن لا فلك قلي تاسو صوب مكانه إنه سقل دنا أيوة أسوق جود بس أيوة إسقامين هيس أيوة دنا إسكره هيس أيوة دنا إسكجيبين هيس انت ولكن انت ما نكوا بونو لكن مع زمانها شيطان قاضي لكن ساسايتا ان لو هرمان انت لا لسيو فعناد dadka caanka YouTuberada weyn ay tala weyn soo jeedinayeen aan ku socono bal aan ku socono tala kule asoo wada waayo markii aad soo ku soo aan baxday
isla markii fiidiyowga ugu horeeya 100 kun ku daawanaysa 100 kun 10 kun ka soo follow gareynaysa markaas aad isku garaacaysa oh my god intii follow gareynaysa aan follow dheer durbaba caan isku malaysa maxaa marka meesha ku qarsoon oo iyada ku dhacaya waxa ku qarsoon intii nin ee la soo haasawday ee la soo sheekeysatay hadday faraka hayeen waa u dhamaatay isla markii waxa leeyahay walaasii madaxda la ana ukala kiciyay waxa ka hayay kan maalmaha ku xiga ma cadaysa ayadoo bararanaysa oo la soo qarxay gabadhay midab ku sheegaa asxaabi waa maqlaysiin wuxuu dhahay gabadha markay soo caan baxdo inta soo followers ay ku hesha isqaawinteeda iyo waxaasay kulli intii hore followers ay soo dhahday ay iska bixin wada followers inta ayada dhahday iska bixin inta ayada followers ay soo dhahday way u joogayaan taasoo macnaheedu tahay caanay noqod gabadhaas haddii hal mar qofka caan u noqdana waa taqaanin dadka caanka leedahay ma baray kulli waxa yani dadkan kale waa biyaasaawo marka ma idin baahni camal shalin ayada follow dhahdi maantana waa iska ilaalin intaas markan ku sii socda wuxuu dhahay wax secret oo laga hay ayaa binaan loo soo dhigaa waa ogtiin qof walba adduunkan joogo zamanka maanta la joogo wax walba xumaan oo hay haddii qofkaas oo caan noqdo ama qof bulsho noqdo ama qof la aqaan noqdo wax walba oo lagu dhabar jibin kara ayaa la sameeyaa sababtoo ah adduunka dadka isku soo kama dhigin horta labadan forotaab ka leerin ay dadka ugu leerin qofku hadduu fiican yahay qof kalena xun yahay zamanka la joogo saaxiibada weliba zaaid saaxiibada badankooda inta yani isku kalsoon waa yartahay hadeertaan la joogo waxaa maqla qof saaxiibkiis u dhawaayo waa gaalka toogta yani waa waxyaabaha lala yaabo yani qof adiga as u malaysanin maanta inuu wax kuwaada binaan dhigayo ama xumaantaada oo soo bandhigayo ayaa sameynaya laakiin waxaasay too markaanay gabar lagu heli kabaran gabadhaasi si walba loogu faa'iidaysta la isku dayaya sawirada banaanka soo dhigaynaa ama waxaan rabna noo sameeya laha ama videoyaasha banaanka soo dhigaynaa ama waxaan rabna noo sameeya marka taasoo dhowtay dambana calaacal fara badan ama ooyin fara badan media qabsan doonto waayo sababtaa gabadhan haddii ay waxay ninkaasay asri ay sameyni weyso maxay maadays ninkaasay sawirre ama videoyaashu ay banaanka soo dhigaa markuu banaanka soo dhigana ummad Soomaaliyeed dhanna markan gurmanayo qaylinayo buuqi qaar gabadha dhahay waan ceebaysto saas waa qaar dhahayana kaaras qabtiin gabdhaha Soomaaliyeed sahan yeelino inta ka dhacdayo marka kul horeba arrin maxay ka bilaabatay wala isku istaa arrin maxay ka bilaabatay gabadhaanayta waxay ayada ilaashin weysi taasna markaan luma dhalilayo oo shaydaan qaaday laakiin waxaa fiican batatanba social media ku jirta waxaa safe ku haayeen waxaa secret ku haayeen adiga la kale isku kalsoonaw arintaas ma talayga ahaan leed ayada kale isku kalsoonaad gabadhaanayta wax secret oo maanta binaan iga waxay ma walaay dhileed markaas la dheero laakiin haddii adiga secret laga haaya asmeediga soo gashid kullay wax caqabado loo kulmana dulqaad oo yeelan karta wax caqabado loo kulantay dulqaad oo yeelan karta waa لازم قف عن horta maba caqabad ma la kulmay man dheekara sababta inta xumaan u qabta kasi badan inta wanaag u qabta aan soo bal odiga waxa sheegay maalmaha ku xig ma cadaysa ayadoo bararanaysa oo la soo qarxay gabadhay midab ku sheegaa haddii laga soo dhaadhiciyay oo qurux badan tahay ama jiri roshadana haysataa TikTok kaale ku kala kacay ogow maalinta adiga TikTok maad imaanay waxaad imaaday goobtii mustaqbalkaaga dambe aad ku faxshirin lahayd ayna kaaga dhamaan lahayd wiil wanaagsan inuu ku niyeysto inuu ku guursado anigu been ku sheegi maayo haawarun dhammaan mid wanaagsan iyo mid fiican isha uu ku hayna inuu kula seexdana uu ku haminaa ama mar un jirkaas uu daawanayo aad soo fiiday inuu gacanta ku dhigo wallahi 100,000 ee ku daawanayo hal nin
guurku niyeysanayo kuma jiro maadaama go-aan ku gaartay horteena inaad isku qaqalatid aad weliba isku soo qaabisid gabdhaha hadda tiktok soo galaya digniin ayaa idin siinaa ogaada markii aad soo gashaan isla markii nimankii idin yaqaanay hadday fara idinka hayaan inay markiiba idinku bilaabayaan inay idin soo qaxiyaan waayo adiga ayaaba waxaa bilowday hortooda in aad ku samaysid waxyaalo anshaxumaa adoo aaminsan inaad soo cambuucdisid waxaan hadda ka sheekeynayo dad bay ku dhacday kuwiin canabaa ka mid ah before tiktoka wuxuu ku joogi jirtay qaabir oo miinima ayuu ku joogi jirtay gadaal dambe waxay bilowday inay isalsalaaxdo ee kadarey samayso isla markiiba waa la soo qarxiyey marka middaa idiin sheegaya waxay tahay ka digtoonaada haddii aad gabdho tihiin in cawradiina caannimo ku bedelataan wallaahi waxaa idin siinayaa talada aan sii lahaa gabadha aniga ila qalatay oo walaashaya adina warnimiyow ninkaa khayr laasi waxaas reeb ma laha wuxuu reeb ma laha tala meesha u dambeysay yani oo gabar walaashiis oo isku hooyo isku aabbayiin aad siin lahayd ayaad sii gabdhaha soomaaliyeed oo dhan marka inta waana qaadanaya waaba iska yar inta kalena waa un ileenba meel ood sama hortooda ay ka arkayiin marka waxaan saas u leeyahay hadda gabar mustaqbal ay rabtaa wax walba ay rabtaa soomaal laakiin tiktok gabarad ay soo gasha oo si qaab daran ay ku joogto mustaqbal ma ismeel sababtoo gabdhahan inta aragti 90% waa wada single gabdha yar aas arkaysa hataa single ma ahana gabdha yar hataa aan qangaarin arkaysa oo laga waalaay marka gabadhaasay yaraanteeda saas soo gashay meesha oo saasay lagu waalay oo beentas aad lagu soo buufi biri kamaan mustaqbalkeedaas horta rajaynayo horta inaas jir uma malaynayo sababtoo ah inta haddaanayd ku jirto tiktok waxaad haddaa umalaynaa 3 sano 4 sano in tiktok ku jirto waxmaan kusoo cambaadin intii haddanay yani la aqal galay waa iska yartahay hal ilaa maxaa loo wala guursan lahayahay asleedahay mustaqbalkeed finish waa meesha isku dhammaaday marka videogan intaasaan kusoo gabgabaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciao